بسم الله الحمد لله الوحده ثم الصلاة والسلام على رسول الله السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadyoga kuweenaan waxaan idinku salaamay kulligiina 6,660 iyo 6 aayadood aqrintii ama codkii ama fariinkii ahaa jariir Soomaali ba mise Soomaali maaha taas ayaan rabaa inaan idinka jaahil bixiyo misna idinka jawaabo kulligiinaba ninka hadlay ka dhiidhiyay mise ka hadlay jariir Soomaali ma aha ninkaas ayaan rabaa inaan jawaab adag siiyo ku filan calooshiisana buuxin karta maskaxdiisana qaabisha walaalkayga qaaliga ahaa hadlayo oo yiri jariir wuxuu ka soo yimid Majra Konga iyo Tanzania ninka yarow iimaanka Allah ku geliyo awalan iimaan meesha kuma haydid waxaan ku leeyahay iimaanka Ilaahay ha ku geliyo mar Allah markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala azza wajal abuuray nabiyullaahi Aadam alayhi salatu wassalaam آدم والبشر آدم وأدوغي كوباد آدم ونكا أنكو فرع ترسنا أما أنكو مقع ترسنا وأنا قردان مقعين أو يهي بنا آدمي أما بنا آدم أوكي وحان كو شيغا يا باشان وحال اسكربا لحكن لحبقل لحدن إيه لحدة آيادات إلهي سبحانه وتعالى عز وجل بس كمربا تاريخ دا إيه ملأوالك بينتا أها تليانيغا عالنكا أكوغوسية أما الدولة أكوغوسية إناد وحكا سو قادت بس كمربا waxaan ku leeyahay mar walbaba markaad hadlaysid la imaaw diin iyo masxab munazal ah jareerweyne waa Soomaali jareerweyne waa Afrika jareerweyne waa ninka loogu yimid geeyga Afrika ama geeska Afrika way sababtoo ah dadka jareerweynaha ah tacbatada ah jiinka ku taxan ha umoodin inuu keenay jiinka gumaysi ab iyo Israa'iil ayay u leeyihiin ilaahay xaqiisana ka ahaatay wadankan waxaan soo degnay 6,554 meel ku qoro diin ayaa sheegaya quraanka munazalka ayaa sheegaya ma ahan sheeka baraleyda iyo quruufaadka naxliga talyaaniga adiga ku bari ma ahan arinkani waa arin ilaahay xaqiisa ka timid diini ah nabiyullaahi aadam ka gadaal waxa soo baxay nabi nuux oo la yiraahdo abu tani ama aabihi lamaad adduunyada nabi nuux alayhi salatu wassalaam nabi nuux yow dhalay waa adduunyada yow ka dhalay nabi nuux waxa uu dhalay xaam bin nuux curadkiisa سام بن نوح عرض لماتكي ساعة يا ياسر يي كليهين ياسر كلا نقد دونان حام وانين مدو أفريكان جريروينا دالي كونتن يا أفرت الدولدود أفريكا وحام بن نوح وحو دالي كونتن يا أفرت الدولدود أفريكا أيو أبو وذيه سام وانين كعرب كأما ماركا إيران يا عراق يا تركيش كي يجود يا تركيش كي يجود وما جود وحلا هالمال سام ويهودا تليانيكا فرنسيسكا بلجيكا إسبيولها إيه وحلا هالمال هو أوروبية أما يوروب لو يقان waxaan ku sheegayaa aadam mar allaala markuu ilaahay subhanahu wa ta'ala oo yiri ihbida minha jamii'an aadam markii ambihi iyo canuuniga saytuunka isbaandeyska iyo qudaarta macaanta badneed mar allaala markii shajarka ama geedka oo liqay ilaahay carre iyo cataba aadam ilaahay xaqiisa ugu timid aadam xajar aswadka iyo abliiska iyo abawtaxaabo ihbida minha jamii'an marka la yiri ninkaadaano waxay yimaadeen arlada bacdama ay yimaadeen aadam wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dib ugu soo noqday rabbigiisa inuu baryo tuugo ilaahayna ka idmay kana ajiibay aadam jabriil ayaa loo soo adeejiyay misna loo soo diray aadam waxa loo jeexay wabiga jubooyinka ka bilaw ama niil dheh ama meel walbaba dheh ama shabeelooyinka adiga ku taala jiin wabi ab iyo isr ayaan u leeyahay waxaana ka dhaxlay adoogay nabi aadam alayhi salatu wassalaam ka gadaal aadam tacabkii aadam dhaqankii aadam yaa dhaxlay yaa soo weyn yaa haysta aniga ayaa haysta markaad leedahay qaarkooda Uganda ama aad ku tilmaamaysid meel kale dadweynaha kuwaas ah waa walaalaheen waa ilma adeerteen waa garabkeen laakiin saddex Konga ayaa jirto ogow qoro Konga Brazil Konga Kinshasa iyo Konga Madani 6,554 bismillaahi mujriha wa mursaha inna rabbil ghafuur rahiim nabiylaahi nuux markuu doonta ku koxeeyay oo doontii yaa sarnaa doonta aniga ayaa sarnaa oo xaam bin nuux ah kana soo jeedo awlaadii Afrika ee nabiylaahi nuux kana soo jeedo talweyne ama curadkii nabad loox magaciisa loo yaqaan xaam bin nuux okay xaam mar allaala marka doonta oo keenay doonta eerida ku aadan xeebta oo jawhar ayay ka soo daadahday ama ay ka soo degatay waa sanadka markuu ahaa 6,554 meel ku qoro adiga sidaada waxaad ogaataa qoomiyada loo yaqaan jareerweyn waa curadkaaga Soomaalida qayb kamid ah waxay u tahay abti sax ay u tahay kana timid ilaahay xaqiis Soomaalida qayb kamid ahna waxay u tahay adeer aradaas aniga la'aanteeda ma aysan socdeen magaca kale midda kale waxaan ku sheegayaa waxa tiri Soomaali adigoo oo qadka ka soo hadlaayo qoomiyadaha dir iyo daaro degal ee mirifle habiye iyo ma aragtaa wixii la halmaal waa kala bixin leedahay ma micnaa Soomaali iyo fisir ما معناها صومالي يفسر ما معناها صومالي
Soomaali macnaheeda ma taqaanaa wadanka Ingiriiska dadkii waxay yiraahdaan Ingiriiskan u socda ama UK yan gaara way dhihi karaan Ingiriiskan u socda ama UK yan gaara way dhihi karaan ma macnaha UK ama Ingiriiska Ingiriis markaad maqashid ama English markaad maqashid waa luqad dadka Orobeeya ama waxa la yiraahdaa Europe ama waxa la yiraahdaa Britain ogow ما معناه Soomaali markaan adiga ku leeyahay Soomaali muxuu yahay Soomaali ma ahan oday dhashay ma ahan hadoo adiga oday aad u moodid iimaanka Allah ku galiya xarafka Soomaali ama magaca Soomaali waa qoraal la sameeyay state ah loona sameeyay afka Soomaali waa soodkeena Soomaali ma jasada ma jismiya ma nin dhashaya hadaba sheeg odayga Soomaali qabrigiisa farta ku fiiq Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam كن أفر بقول أفرتن يكو تاريخ ده ما أنت أنجوجنا وزمن نبي محمد خبر جيس ولا يغان آدم إندي أيوك دوغيا أبو تحاوى جدا أيوك دوغنتا وذيك الصومالية شلمان تلهان أها أو ما أركتا وتاريخ دي سيسان ديرين خبر جيس الشيك حتى الصومالي أجو أباها كديغانين واللوقت وهذا وصوت جسد معها جسمنا معها قف نولنا معها وأفكا أنكو هذا لنا أف صومالي ويان صومالي دو هكديغن أن أضد الشاه هكديغن أضد الشاه هكديغن وحن كلو كوشيغا كونغا مدني أيان كل شيء تاريخ دمر كهات لحكون شنبغل كنتني أفرت أيان جري إيريداس أديك إيه وحوده يسر كان يفرع ما يسنجرين سومالي ده والله بديجان أما والله بقوله الله يقانو حول دقته يبير تعبته مرنا هدي سكر اللي هو بدله وعرمالته يعانى مالته متكلا هذا سدحت أنكو قصي بدله وارير جوراي يرير ديجان أنا جوحان أي كان ديجان كأكتر كفدي marka la yiraahdo magac shiidle aniga shiidka ayaan sameystay kuna shiidanaya badarka saadirteeda ay shiidle ugu yeertay walaalkay waa qaldan tahay erayada nooca ka fiirso ab iyo isir dhaqan iyo deegaan ayaan u leeyahay dhulkan asaga ah ciise bin Haam bin Nuux bin Lamki bin Mihra bin Lamki bin Mudwashqal bin Mihraa'il bin Yardi bin Aqluq bin Anush bin Shayd بنو آدم أبدا تراب عليه الصلاة والسلام عن دولكان uga fadhiya kaagama fadhiya adiga shaqa kuma lihid dhulka asaga ah geeyga Afrika yaa loo yaqaanaa Soomaali Afrikaankeeda waa aniga Kenya tag waa aniga Tanzania tag waa aniga aniga ayaa iga aslantay aniga ayaa iga soo jeedaa ha ugu saqa jaaman hanna igu baabeen taariikh ayaan haystaa haddii awlaada aan ku sheego Najr bin Haam waa Nigerianka Kush bin Haam waa Ethiopia waa qadiimi waa Nabi Muhammad dadka عليه الصلاة والسلام زمن كي نبتقلية أمان قلية إلهي نبتقلية أمان دشي ساحاتي أوكي مصريان بن حام ووطن كمصر أنا جوحنا عيسى بن حام عيسى هاسو إسكالي جيجا سوماليا أما جيسكا سوماليا كنور إلهي نسودجي كن لحكن شنبغل كنتني أفرتي زمن نوح أيان أرلدا أن كسوغنها أرلدا أيان جوجا مركا غروفات كا يتفرارقا آت ما أركتات كهدليسيد إيمانك الله كاجريو أنا أبوغا أيان هاي أصل كاغا أيان هاي أساسها أيان هاي هدان جيرين دينعن وقد عايدينيسا دينعن ملب أياد إيغا ديغيسا بقرتويا أي هاجرين أياد أقول لها نصيب بوندي وحي لها المال أياد شيغيسا مطنان قار أي ليهن مرنا waxaad ileedahay Soomaali maahan war Soomaalidu waa aniga waa soodkeyga waa luuqadeyda afka Soomaaligana ogow waa may iyo maxaatiri labadan ana leega soo gaari cid kale oo ku hadasho male maxaatirida weebeenka saxda aniga iskale mayda weebeenka saxda aniga iskale marka adiga aan dhexda ku dhumaayo sida ogow asagana tookadii ha gaarto ha ogaado inaan talweenihiisa aan ahay la'aanteeda oo san joogi karin dhulkii in aniga loogu yimid geeska Afrika waa meeshan Asia ma ahan Afrikana waa aniga cid ila sheega karto iyo cid ila la maraha kan kale waa kabshir xoog iyo abud sheegasho laqdaba iyo laablaab waa kuwa shanti farwaaqaba waa kula daga wax walba ka sameeysan kara laakiin ogow ma doonayo in Allah ma'a saabiriin afa Allah amma salaf wallahu subhanahu wa ta'ala alam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh